بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبشر رمضان بالبركيسن وخير badan weeye. waa bishii uu ilaahay qur'aanka soo dejiyey, waa bisha uu ilaahay u doortay laylatul qadar inay ka mid noqoto. bisha barakaysan wuxuu ilaahay amray subxaanahu wa tacaala addoomihiisa inay jaamacad galaan muddo bil ah sanad walba, inay addoomaha mu'miniintii jaamacad galaan. waa amaruu ilaahay bixiyey subxaanahu wa tacaala markuu yidhi: shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasumhu. amarkaasuu ilaahay bixiyey. bishaa ramadaan markay bilato waa inuu qof waliba soomo buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. waa amar uu aayaddaa ilaahay ku bixiyey, ilaa marka laga reebo qofkii cudurdaar leh oo maxay ahayd musaafir ah ama qof buka ah. qofkii kale ee aan bukin ama musaafir ahayn ama kuwii kale aan ilaahay ka dhaafin ramadaanta, amar buu ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala inay kulligood soomaan. amar adag. muxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkaa adag u bixiyey? wuxuu ilaahay rabaa isagoo mu'miniintiisa jecel in khayrka bishaa ku jira aanu qofna seegin. sababtaas ayaa ilaahay amarkaa adag u bixiyey. rasuulka alleh subxaanahu wa tacaala oo inoo sharxaya kaas amarkaa uu ilaahay bixiyey wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: qad jaa'akum shahrun mubaarak ifturida allahu calaykum siyaamuhu أو صيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. وحول رسولك الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة isaga oo inoo sharxaya wuxuu alle ugu amray qof kasta inuu soomo amarka adag. wuxuu yidhi bil barakaysan baa idin soo waajahday oo ilaahay amray inaad soontaan. bishaasoo albaabada jannada oo dhan la furo, albaabada naartana la xidho, shayaadiintana maxay ahayd jeel la geliyo ama maxay ahayd katiinada lagu xidho. waxa ku jira habeen ka khayr badan 1000 bilood camalka ugu wanaagsan ee qof bini aadam falo. sidaas darteed wuxuu rasuulka alla yidhi sala allahu calayhi wasalam: qofkii fadligaa ay ramadaan leedahay ee xadiiskaasi soo koobayo iyo wixii ka badan ee kaleba, qofkii iska xarima, iska hor joogsada, iska mamnuuca, isu diida ayaa ah buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam qof wanaag oo dhan iska xarimay. sidaas darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rabaa inaynu jaamicad bishaa ramadaan galno. waa jaamicad magac leh. jaamicaddaas waa jaamicad manhaj ama maxay ahayd curriculum leh. waa jaamicad digrii laga qaato, digriyo kala sarreeya jaamicad laga qaato weeye dadkii doonaya. jaamicadda magaceeda waxaa la yidhaahdaa madrasatu taqwa. ilaahay subxaanahu wa tacaala sababta ugu muhiimsan ama ugu weyn ee uu u jideeyey soonka waxa weeye in taqwo la helo. algaayat alcudma min waraa'i siyaam hiya taqwa. ujeeddada ugu weyn ama maxay ahayd manfaca ugu weyn ee uu addoomuhu ay ka helaan soonka waxa weeye attaqwa.
taqwaduna waa shay aada u weyn oo manfaceedu weyn yahay qofkii muttaqiinta ku biiraana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa qof aada u nasiib badan ilaahay oo inoo sheegaya in ay ujeeddada ugu sarraysa ee uu soonka u jideeyey ay tahay taqwa wuxuu yidhi allah subxaanahu wa tacaala kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa alla rumeeyeyow wuxuu ilaahay soonka idinku waajibiyey idinka iyo kuwii idinka horreeyeyba si aad taqwo u heshaan buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala taqwaduna sidaa aynu hore u soo sheegnay waxa weeye qofkii helaa qofnaad aada u nasiib badan waayo taqwa wax kasta iyadaa koobsatay waa erey attaqwa laga qoray kutub ilaa iyo yowmulqiyaamahana haddii kutub laga qoro aan macnaheeda la dhammayn karin weeye balse caliyu bnu abi aalibin radia allaahu canhu wa ardaah oo aftahanahaa oo inoo soo koobaya attaqwa micnaheeda ayaa wuxuu yidhi attaqwa hiya alkhawfu min aljaliil waalcamalu biاltanziil waalqanaacatu biاlqaliil wاlisticdaadu liyowmi اraxiil attaqwa waxay tahay ilaahay oo laga cabsado labadii waxdiye qur'aanka iyo sunnihii rasuulka alla soo dejiyey oo lagu camal falo wax allaala wuxuu alla ku siiyey ha weynaadaan ha yaraadaan oo lagu qanco laguna raali noqdo iyo alisticdaadu liyowmi araxiil maalinta kala guurka oo qiyaamaha ah oo qofkaas uu isu diyaariyo qofka muttaqii maalintaasuu isu diyaarinaya wuxuu alla siiyo wuu ku raaliya ilaahay buu ka cabsanaya labadii waxyiye ilaahay soo dejiyeyna wuu ku camal falaya markaas qofkaas inuu aflaxo mooye meel uu ku hoogayo ama maxay ahayd xumaani uga imanayso ma jirto madrasadda magaceeda la yidhaahdo madrasatu taqwa waxay leedahay manhaj ama waxay leedahay curriculum la barto curriculumka waxay isku soo koobay waa lawa badan yihiin waxa lagu barta oo qiyaamu leylka ama taraawiixda aynu tukanayno waa deris la baranayo ilaahay rabo qofku inuu ku tadriibiyo naftiisa si uu markay ramadaan dhammaato qiyaamu leyl uu u sameeyo soonkaa aynu soomaynaa waxa weeye manhajkuu ka mid yahay si uu qofku soonkaa u sii wato waa badan yihiin duruusta laga barta laakiin mid baa ah waajib qofka soomaya inuu la yimaado kaasoo ah alimsaaku can alطacaami waasharaabi wa shahwati alfarj inuu qofku ka joogsado ama aanu cunin oo cabbin iyo midkii kale ee dadka qaangaadhka ah ay garanayaan ayaa ah tadriibta ugu sarraysa ee qofku uu ku baranayo inuu ilaahay dartii cunto hor taalla aanu cunin sharaab hol yaalla aanu cabbin arrimaha kalena aanu samaynin taqwo uu ilaahay ka qabo darteed cibaado kasta oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maxay ahayd jideeyey soonku wuu ka duwan yahay cibaado kasta oo aynu falno waa in lala yimaado qowl ama camal cibaado kasta waa in lala yimaado ficil sawmkii waa maxay waa ka joogsi laga joogsanayo ficilkii weeye marka waa cibaada siriya oo ilaahay uun og yahay iyo addoonkaas inuu isagu sooman yahay iyo in kale isagu waa is og yahay allana waa og yahay subxaanahu wa tacaala culammadu waxay yidhaahdaan kulla cibaada tuؤaddii bilcamal walaakina الsawm yuؤaddii bilkafi can اlficl aw can اlcamal waa cibaadadaas wixii kale oo dhan waxay iyadu kaga duwan tahay in aanu qofku falin camal maaha un sharaabkii iyo cuntadii iyo jimaacii maaha balse waxa weeye inuu carabkiisa indhihiisa dhagihiisa jawaarixdiisa kale oo dhammi
inay qofkaa soomaan oo ay ka soomaan macsidii iyo maxay ahayd dunuubtii. jaamicadda uu alle amray in la galo ee bisha la dhigto, dadka jaamicaddaa gala, waayo dad baa jira aan gelinba jaamicadda, waa kuwii aan soominba. dad baa jira gala oo duruustii la dhiganayay marka imtixaanka yimaado ku dhaca oo ku saaqida. waa kuwee kuwaasi? waa qofkii isagoo sooman haddana macsidii iyo dunuubtii aan ka joogin, ee calooshiisii sooman tahay, ee haraadan, balse dunuubtii kale sideedii aan wax iska bedelay aanay jirin, oo xantii iyo beentii iyo maxay ahayd tuugadii iyo wixii kale oo dhan ayuu samaynayaa qofkii. marka soonkaas waxa weeye waa soon naaqisa, sidaynu arki doonno in sha allahu tacaala. jaamacaddaas markay dadku galaan digrii baa laga qaataa, digriya laga qaataa. digrii aynu odhan karno waxa weeye bachelor weeye, digrii aynu odhan karno waa master, iyo digrii aynu odhan karno waa PhD ayaa laga qaataa. sidaynu soo sheegnayna way jiraan dadaan inay qaataanba digrii iska daaye ama ku saaqiday markay dhexda marayaan ama jaamicaddiiba aan gelin. digriyadaasu maxay kala yihiin? waa darajooyinka soonka ayaa digrii aynu u bixinay, anaa u bixiyey in sha allahu tacaala. haddaan qaldanayna allah iga dhaafo. laakiin culimmada antix raacayo waxay yidhaaheen soonkaa 3 nooc ah: sawmu alcumuum wa sawmu alkhusuus wa sawmu khusuusi alkhusuus. 3daa nooc bay culimmadu u bixiyeen. waxa weeye soonka caamka ah ee dadka caamada ah, macnii aniga iyo adiga iyo aynu soonno, ayaa sawm alcumuum ah. waa sawmkaas cuntadii iyo cabiddii iyo shahwatulfarj uu qofku ka joogsanayo ee uu iska ilaalinayo. balse dadkii qaar soonkaa soomanaa, sidaynu hore u soo sheegnay, kama soomayaan dunuubtii ay ka mid yihiin beentii iyo ghaybadii iyo eegiddii xaaraanta ahayd iyo maxay ahayd carabkoodii oonay kantaroolayn, gacantoodiioo tuugo iyo lugahoodiioo tuugo u soconaya oo u sacyeeya. waa badan yihiin dunuubtu. السلف الصالح oo uu ka mid yahay ibn Rajab al-Hanbali rahimahu Allah waxay yidhaaheen ahwan الصوم صوم العموم. soonka ugu yar, soonka ugu hooseeya darajooyinka soontu waa midka uu qofku gaajadii iyo sharaabkii iyo xisaabtii kale weeye. marka labay kuwaas u kala baxaanoo qolo waxay ka soomaysaa dunuubtii iyo macsidii, qolno iyagoo sooman oo aan cabaynin oo aan cunaynin ayaa haddana aanay soomanaynoo dunuubtiibaa laga yaabaa ay sameeyeen in daalacba loo raaco soonka waxay ka faa'iidaan iska badaaya. rasuulka allah yidhi sala allahu calayhi wasalam, iyadoo ay culimmadu soo xiganayaan xadiiska: ruba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila ajuuc wa ruba qaa'imin laysa min qiyaamihi ila asahr. waxaa jira dad sooman oo soonkoodii gaajo mooye waxay ka faa'iideen aanay jirin. oo dee qofkii haddii uu soonkii aanu cabaynin oanu cunayn, balse dunuubtii aanu wax allaala wax kale oo aanay faraq u dhaxaynin, wuxuu noqonayaa qof iska dhaaf in uu soonkaa ajar iyo wanaag ka hele, laga yaabaa in daalac loo raaco isagii. culimada qaarkood waxay yidhaaheen kam min saa'imin muftirin wa kam min muftirin saa'im bay yidhaahaan. imisaa qof sooman balse aan soomanayn, imisaase qof aan waxba cunayn oon cabaynin balse sooman. macnihi waa maxay?
wuu soomaya wuu gaajoonaya wuu haraadan yahay laakiin soonkiisii waxba kama jiraano dunuubtii kale ayaanu meelnaba u joojinin dadka qaarna iyagoo wax cunayo cabaya ayay sooman yihiin oo aanay dunuub gelaynin labadaa marka la isbarbar dhigo haddii aanay ramadaan ahayn waxa labada khayr badan kaa aan soomanayn ee laakiin aan dunuubta ku jirin waa haddaanay ramadaan ahayn hadday ramadaan tahay laakiin waa xisaab kale oo dee kii soomanba darajo sarreeya waayahay darajada ku xigta ama digriiga ku xiga ee ay dadku ka qaataan jaamicaddaas waxa weeye waxa sawmul khusuus weeye waa soon khaas ah culimada qaar waxay yidhaahdaan oo ku magacaabeen sawmu saalixiin waxa weeye soonkii aynu soo sheegnay sharaabkii iyo cuntadii iyo tii kale ayuu qofkii ka sooman yahay sawmul khusuus ama sawmu saalixiin waxa weeye wuxuu ku darayaa qofku inay dhagihiisa araggiisa gacantiisa carabkiisa lugihiisa jawaarixdiisa oo dhammi in ay ka soomaan dunuubta iyo macaasida waa qofkaas markaa qofka darajada sare ka helaya waayo siduu yidhi jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canhu ardaa idaa sumta falyasum samcak wa basaraka wa lisaanuk can ilkadibi waalmaxaarim walyakun calayka wiqaarun walaa tajcal yowma sawmika ka yowma fitrik jaabir ibnu cabdillaahi radia allaahu canhu ardaa alsaxaabiyi aljaliil wuxuu yidhi haddaad soonto waa inay maqalkaaga araggaaga maxay ahayd carabkaaga waxoo dhammi waa inay ka soomaan dunuubta iyo macsida haddaad sooman tahayna waa inaad yeelato haybad walyakun calayka wiqaar haybad waa inaad yeelato ma maxay haybaddu waa inaanad u dhaqmin sidii qof aan soomanayn waayo soomku waa cibaado sharaf badan weeye waa cibaado aada u sharaf badan weeye ilaa xad uu rasuulka alleh sala allahu calayhi wasalama gaadhay inuu yidhi haddii adigoo sooman cidi kula dagaalanto oo ku soo ma garanaysaa hujuunto waxaad tidhaha innii saa'im waa maxay micnaheedu waan soomanay ku dheh waxa weeye qofkii raba inuu kula dagaalamo adigoo haybaddaa soontu leedahay sita ee uu bulaacaddaa ka soo baxda guryaha doonayo inuu maxay ahayd wejiga kuu marmariyo oo soonkaagii iyo cibaadadaadii iyo dhowaanshihii aad alle ku dhoweyd uu kaa jiidho rasuulka alle wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa waan soomanay waayo anigu bulaacadda aad adigu ku jirto soo geli maayo ku soo biiri maayo wiqaarkaasay leedahay haybaddaasay leedahay soonku jaabir ibnu cabdillaahina wuxuu yidhi waa inaad kaa yeelato walaa tajcal yowma sawmika ka yowma fitrik hana maalintaad soomanta iyo maalinta aanad soomanaynna waa inaanay iskugu mid noqonin waa inaanad isku si u dhaqmin waa inay kaa gedisnaato waayahay waxaa ku xiga waxa weeye darajada saddexaad ee aynu leenahay waa PhD taas waa masterkii weeye aynu imka sheegnay sawmul khusuus darajada saddexaadna waa PhD-giyo culimmadu waxay dhahaan sawm alkhusuus alkhusuus sawm alkhusuus alkhusuus waxa weeye sawm alambiyaai waasidiiqiina waalmuqarabiin soonka ambiyada iyo sidiiqiinta weeye waxa weeye sawm ay ambiyada iyo sidiiqiintu ka soomaan labadii aynu soo sheegnayba weliba waxay ku daraan iyagu sawmu alqalbi can ilhimam addanii'a waalafkaar addunyawiya waxay ka soomaan maxay ahayd himooyinka ama maxay ahayd aada u hooseeya iyo afkaarta dunyawiga ilaa dunyan turaadu liddiin marka laga reebo adduunyo diinta lagu hananayo ambiyada iyo maxay sidiiqiinta iyo maxay ahayd muqarabiintu way ka soomaan kullu wixii maxay ahayd way ka sooman yihiin oo qalbigoodu wuxuu ka sooman yahay wax allaala wixii afkaarta dunyawiga iyo hamooyinka
hooseeya oo dhan allah inaga yeelo sanadka maanta ah kuwii soonkii ay soomi jireen darajo kor u yara qaada oo hadday berigii hore bachelorka tiigsan jireen allah inaga yeelo kuwii masterka tiigsada sanadkan ee masterkii oo ah in laga soomo cuntadii iyo sharaabkii iyo xisaabtii kale iyo in lagu daro jawaarixdu inay soonto wallahu aclam wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh